إيمانكينا أول عقيدتي أول وادرك صندوقات صين الكواي جواب مكبحيني سينا إلا أنت يدرو قاضي إنسان إسلام لماذا ومد كليات كبد بهذه السنة لبعض صدق مد كليات وبيحكي سنة وحدة إن الدجال إنسان مركز أيد حقين هي لسان هو كيلو وين الديار ستان دجال أيان السجاي دجال كمركز كشان كذب وروح عايزين كإيمانه دفعير وديك دفعير فيلم كان وحلا وترجمة استوديو فام بروتش مقدشو السلام عليكم ولا الاسمان. وعليكم السلام. walaal qorshaha xiga muxuu yahay goormee ku dhaqaaqaynaa walaal qorshaha xiga maanta walaal hadda arrintan sameyno magaalada inaan igu soo horjeysays cabsida iska daa wixii dhacay ha dhacaano waana qoorta ka jirtaan adiga soo madhiin shaqayaan rabaa shaqadaada waa tan midada kaleete shaqada geesnimo ayay u baahan tahay ee gees iska dhig waxaan kaa rabaa inaad tusisni geesi inaad tahay gacantiisa gadaal ay u laabanayno maxaad sugaysaa qal waxaan u baahnaa hawshada guri istariid ka dhigto geesi iska dhig qal maxaad la taagantaha fikirin labadii baasboro speed samaysana waa ii soo qabta yaa baxsanin axsaana soo qabto waa ka hortay socdan مدانا كيس دحد قبس دينا وبحصدي هو بحصد المحل ده جيمس بوم يا أسيق أنا قاعد سوق بناي عيد مبارك إن كان حق الإيد كذا خصوصية إن وويل كي ركيس وايبه لكن ما قاعد لقى قلبي هي حقيقة وحيتها هدين إنهم دوسوا مسلمين دحتوا واي قلدين جهدنا ويكلوا مني مر والبا أنا قلنا وعد يجري وحن يجري من دريدن أتجي سنة كده ودم بيه أنا مسلم مي ويل كيجن مسلم ما محاكو كل عين وهي أنا ما بيكو شيء كويل كان سامع ما قيسنا عمر عبد الله مسلم أيون نقضي
aniga asagoo hinduusaan ogaa meeshuu muslim ku noqday miyaan ogaa iyo qorshooyinkuu dibcsay aniga dembi allenay saari sheeka ayuu ii keenay waa nin weyn qiira mas-uul ah wiilkiisa wuxuu samaynaa maba oga aniga aqaan wiilkaaga waxaa ku samaynaa waryaa goormee ku bartay ii sheeg islaamnimada hadal magacaagan maxaad u beddeshay ii sheeg basbarfiigana maxaad u samaysatay war adiga keen maanta soo maqdina u malaynaa anigaa ka raacay ninkan dhiiggiisa ayaan daadinaya orod bax waxaan kaa rabaa baaldiina ay soo qaata dhiiggiisana aan ku shubo isbitaalka ayaan geeda dhiiggiisa dhibic dhiig lee naga daadanayso unuka wax weynna ma ahan waa dhibic dhiige waxba nagama dhibayso ha iska daadato aniga waxba nagama beddelaysiin waa dhibic dhiiga dhegihiina ku haya sidaa doontaa noo garaaca waxba naga beddelaysaa waa dhibic dhiig oo keliya waxba ma aragno sidaa rabtii noo garaaca dhibic dhiig lee waaye hadaalinina annaga waxba naga beddelaysaan fikraddeeduna waa sidii hore na garaaca mudane nimankan qorshe ayay maleegayeen waxayn rabeen dagaal inay sameeyaan annaga ka hortagnaana soo qabna baasaboordooduna fiig maskaxdooduna waa la dhaqay wax ku jiro haba yaraatee ma lahanba yaa dhaqayna aniga ma aqaan mana hadlaayaan kulligoodna hal nambar ayay wici jireen waa fiiri kartaa teleefanadaas baaritaan markaan sameeyey ninkan waa kasoo wuxuu yahay magaciisana ma aqaan iyo meesha uu joogaba yuu noqon karaa ninkan marka baasaboorada feega u sameeyey ma waxay rabaan waddamada dibadda inay weerar ku qaadaan mase waxay rabaan markii halkan weerar ka geystaan kadib inay baxsadaan oo dibadda ay aadaan weerar bay qaadi rabaan dibadday aadiran waxaas wax jira maahan aniga waxaan kaa doonaya arrinta inaad soo ogaato tan kaleete dadkan bambay ayay dagaalka abuurayaan adiga saraakiishaada kuma jiro meel nin hawshaan soo gebagaban kara ii sheeg aniga waxaan u baahan hawshaan adiga soo gebagabaysaan uma dulqaadan kara baabaa dalkayga loo geysanayo waa difaantay dhammaantiin soo maaha anaga iskuulka arkay ayaan dhiganaa waxaan rabnaa inaan iska dhaafno sababtoo ah iskuulka jiim u dhow niman dhigto ayaa mar walbana qashaado goonooyinka ayay nooga dhigaan xataa arrintan booliska waan ku dacweyna balse booliska ilaa iyo hadda wax waa ay ka qaban laayihiin haddii ay booliska arrintan wax ka qaban waayaanna anaga waan iska dhaafaynaa waxbarashadoo dhan iskuul dambena ma soo aadi doonno ciidamada waxaan ka codsanaynaa inayna badbaadiyaan booliska haddii aysan wax noo qaban karin qof kale waxa noo qabto fiideo baad dubta baraha bulshada ku faafaysa soo maahanne inaan goonnooyinka idinka jijidna wax nagu kalifaa waxay tahay goonnooyin gaagaabanaa soo qaadanaysaan annagana markaas kontaroolkaa naga lumaayo waaye xaaskaaga maad ka siibtid goonnada baraawo caleeg maanta adigaaba xaaskayga naqanaya ka waranhe gabadha markii lala aqalgalaayo habeennimo ayaa lala aqalgalaa balse adiga kaaga maali caddeeyaan ka dhigaa dhalayo dhexdiina cabirkeed waa inaad ii sheegtaan waayo goonooyin ayaan idinka ninka marba hadduu lagdamaa yahay shafkiisa cabirkiisa ayaa la weydiiyaa mooye dhexda lama weydiiye cabirkeeda warkaaga wuu sugan yahay idinka gabdhaha goonooyinkooda inaad fiirisaan looma baahno ee waxaa loo baahan yahay kastuumooyinkiin marka hore inaad fiirisaan nooca yihiin hadda kadib goono ayaad xidhanaysaan
qaabkan waa inaa idin dadka jiimka yaqaana waddanka aad baa loogu qadariyay haddii aadan xushmad lahayn jiim ha isku baran haa karan maxaa samaynaysaa dhallinyaro meeshaan ayaan waxaan fahamsiinaya ixtiraamka waxa uu yahay kulan degdegaa jira sidee ugu dhaqsaa badan igu imaw waayahay haddaan kuu imaanaya mudan igaraalna qabal hal sawir ma kula geli karaana laakiin tigtog ay dhigayaa marka aad yareed aniga laba go'an ayaa la ii soo jeediyey inaan adiga aan ku koriyo mise inaan nin guursado nolosheedaan maareeyo laakiin adiga ayaan ku doortay sidoo kale markaad weynaad haddana laba go'an ayaa la ii soo jeeday inaan ku geeyo iskuulka dowladda ama inaan ku geeyo iskuul gaar ah aniga waxaa go'aan ku gaara inaan dadka suxuunta u dhaqo si aan lacag ugu soo qaada dinka iskuul gaarkan kuu geeyo adigaad waxaad go'aansatay inaad muslim noqoto waddadaasna waad ku saxan tahay wiilkayga dadka habay dhahaan wiil muslim ayay dhashay qoftan laakiin uma dul qaadan karo in la dhaho wiilkeeda waa dilaa intaasna ma qaadan karo wiilkayga aniga markayga hore waxaa la dhaha laba dar mid dooro laakiin adiga hal mid ayaa lagu hor keenay waxaan lagaara wiil wanaagsan noqdo laakiin wiilkayga waad noqon weyse maxaa kugu kalifayne inaad waddadaada ka leexad maxaa sidan dhan u samaysa taliya ilaa iyo hadda waan garacna kuwaan wixiina fahmi la'na maxaan samaynaa marka taliya karan kaale meeshaan ila fiira bal 3 nin miya 3 kun miya 300 miya ilaa hadda ma naqan cadadkooda laakiin waxaan hubnaa ujeedkoodu inuu yahay inay weerar ka geystaan gudaha dalka Indiya in laga hortagana waa loo baahan yahay afkii qufusheen warna waa diideen qofulkaas inaan jibino looma baahno furo cusub waa inaan u raadinaa taliya markaasi way hadlaayaan aabbahaaga saacaddiis ayuu iibiyey si adiga kataar uu kugu soo gado waxaas mar horaan iska daayay bal fiiri heesta ugu dambaysay aad adiga qaadday say u macdahay ila dhegayso waxaan waa xaaraan heesahan dhegaha uma wanaagsano qabo gitaarkan gitaarka iga qabo su'aal walbaad weydiisa hal jawaab oo ka mid igama helaysid dhagahaagama furayin oo mii maqashaa dambe hadal waryaa adiga hawshaada wado anigana tayada ayaan wadanaya
وريا الله كدحي تقام من دلالي رواك عيجنا هديك الياكل هذا انا ما هو يا ابدا سكوتك ور هذا sida waa dembi maad iga daysan qasab tambe odayga waa inaad si fiican u cadaadisaan markuu dhintana wiilkiis ayaan dusha ka saaraynaa dina haddaad doonto balse maalintii aydeeda ayaa soo socoto maalintee maalin farxad badan tambe 12 September wixii marka ka dhama xasuustaa waxaasoo kaleet ayaa isla hindii ka dhacay waxna kama sameynay adiga waxba kama bedeli kartid waxna kama qaadi kartid yaa sameynay dila odayga war odayga dila aabbe miyaad dilaysaan tambe dhaqso dila tambe dhaqso waxay taariikh ku tusinayo dhimasho ma taqaan ariga kubra taliisaanna maxay ahayd adeerka shaahigaan qabso jilinka aad garabka nugu siisan waad ku maasan tahay wareedha wiilku wax ma kuu sheegeen hadduu kuu sheegi waayo 5 xabba isaga dhufo sharaftaan xaafadda ku lahaa waa ay u dhammaatay waa fini tawafaan kuulow odayaasha xaafadda hadda lama qaxweyn karo wax allaaliya waxaan sameeyana ma aqaano waagu yaraa soo maha wax allaaliya waxaanan u qaban ma jirto sidii saaxiibkayo kalena waan u soo barbaariyay si welina wax waa u sheegi jiray isaga ayaa isdilay gacmahan maanta aad arkayso waa gacmihii aan ku soo gardaadiyey wiilkayga laakiin maca gacmihii noocaas ah ayaa nin burcada oo dadka baabiiyey meydkiisa aan ku qaadaa maya meydkiisa inta qaadaan meelahaas isagaas anigu idin raaci maya wiilkaygii horta anigu kaan dhalay waa layga qalday kowdhe adigaana ciidan waxaan kaa rabaa inaad adigu hawshaas ka hor tagto aad wixaad u qaban karta aad qabato ballan ma tahay wiilkayga waa igu ballan wiilkaaga suhan waddada uu qaaday inuusan qof kala qaadin suhan kalena ma dhalan doono guryahooda ayaan tagnay talay baaritaanno oo ku soo sameeyay labadii sano la soo dhaafay 23 jeer ayuu wuxuu booqday websaytyadooda suhaan gurigooda markaan baaritaan ku sameyn waxaan soo helnay lacag fara badan iyo cajaladahaasna markaan fiirino waxaaba ku duwan hadallo dhiirigelin ah hadalladaasna waxaanba u malaynayaa waa hadallada ninkan uu soo duubo balse ma naqaana cidda uu yahay meesha uu ka soo jeeda iyo qolada uu ka tirsan yahay intaba laakiin waxaan ubaa ninka ku qasbay suhaan inuu isdil inuu ninkan yahay marka ninkan halis ayuu nagu yahay intuusan weerar nagu soo qaadin waa inaan anaga weerar ku qaadnaa tali baaritaanada aan samaynay muuqaalada aan helay inta markaan isku keennay waxaan ogaanay muuqaalada idil marka hore in laga qaaday magaalada London waxay la tahay marka hawshan inay ka soo bilaabatay magaalada London bal hadda fiiri muuqaalkan hadda inoo muuqda waxa laga qaaday garoon ku yaala magaalada London
intaas kadib taliya gurigiisa waxaan ka helnay baqshadahaas markaan fiirin waxaan ku qoran lacag cadadeeda 89,000 iyo sebtembarna waxaa la soo diray 1,700 sidoo kale oktoobarna waxaa la soo diray 800,000 marka lacagtaas marka hore waxay ahayd dollar kadibna waxaa loo bedelay diinaar kadibna waxaa loo bedelay pound kadib ayaa rubies laga dhigay marka lacagta waxaad ogaataan waddanka ingiriiska inay ka imaanayso 3 Agoosto ayayna ahayd lacagtaasna waxay dhammayd 89,000 lacagta dollar ha ahaato ama baan ha ahaato noocee doonto way noqon kartaa tan kalete london wax waa lagu duuba karaa kamerana waa lagu soo iibsan karaa waad saxan tahay taliya kamerada VHS marka laga iibsanayo website-ka aad bay u adagtahay laakiin waddanka ingiriiska markaad joogto si fudud ayaad u helaysaa taliya taas ayaana keenaysa inaan london kaga shakino waxaan idin beel sooma yaa u karina sani yaa kalehe waa marti maanta ayuuna imaanaya adigana waxaan kaa rabaa inaad barato qaabka martida loo soo dhaweyn lahaa bariis baryaaniga ka waran sida kii hooyaday kala soo carfooya walaal buraak adiga haa taleefanka markaan kaa soo wacay kadib misinaad iga qaboweysay miindidan ayaan qaatay cuntadanna waan kuu diyaariyey haa walaal laakiinse aniga baahi ima hayso waad ku qasbantahay inaad cunto isla haddan gaajo waa in ay ku qabataa walaalka baryaaniga aad uu macyahay oraah ayaa waxayd qofkii si ku talagal qalad u gala in la cafiye aad bay u adag tahay walaal aniga qaladkan waa galay asxaabta indiinoo joogto dhanna waa la xirxir waa ku baryaa iska kee cafo walaal mar damba qalad noocaan oo kale ma gelaayo walaal adigoo og qalad kale inaad iga geli doonteed maanta cafis sidaad ii weydiisanaysaa abiir waxaan ku soo baray ma xasuustaa haddii aad qalad gashid ciqaabteeda waa inaad martaa walaal cunuga yariskana daawanaysaa waay anigaa ugu talagalay walaal sheeko ka fiicananba ku hayaa middaas indii laba askariya halkan u soo diroosaa akhbaartoodao dhanaan kuu soo gudbinaa oo kubaryaa iska kee cafi war mala socotaa hal qalad oo aad gashay qorshihii london aan ka fulin laha fashil inuu ka dhigay dhimanaysa abiir abiir indhaha waa inaad kala furtaa ha isku dayn indhahaada inaad isku qabato kala fur dhaqso maalika xafiiska ayaa lagaaga baahan waxaan u malaynaya waddankaaga xog inay ka imaado marka sida ugu dhaqsiya badan xafiiska waa inaad ku tagtaa waddankayga waa britain waxaana ma waddaa britishna u dhashma ay leedahay taliya markaynu qof gacan ku soo dhigno waxaa loo baahan yahay qofkaas inaan isla markii aanan dilin fursad aan siino aan waanin waxaan u sheegno haddii aan dilin waxaad ogaataan dad fara badan ayaa baaba'ay dhallinyartaasna ma waryaa karan mishankan keliya focuska waa inaad saartaa taliya
mrs tuut waxaan rabaa inaan kuu sheego akhbaartaas oo ah in sirdoonka hindiya uu noo soo gudbiyey in laga abaabulayo dagaal halkaaniiti waxaana la rabaa in lagu baabiyo waddankooda labadiina u xil saaran mudana dadkaas hindida waa madax adageen sharcigana kuma dhaqmaan waa ku baryaa marka maad iga deysid aniga kama cabsi qaba middaas waddanka waxaa soo galaan laba sirdoon waxaan rabaa labada sirdoon inaad soo dhoweysaan waaya tale iga qabo waa aqoonsigaago la bedelay si aan lagu fahmin sirdoonada xagga kuu soo dhoweyn doonana si wanaagsan oo la dhaqan enkerano ninkii suhana waxaa laga hayaa 911 diwaaliga sanadkanna wuxuu ku beegan yahay isla waqtigaas micnaheega 911 aan ka wadaa waqtigaan haysanana waa yaryaa 3 maalmood oo kaliya weeyaan qorshahan haddii uu fashil noqdo masaakiin badan ayay dhibaata ka soo gaaraysaa adigana waxaad ogaataa inaad khaa'in waddan noqonayso oo aan lagu cafin doonin taliya mararka qaarkii adigoo meel wanaagsan wax wanaagsan ka raadinaya ayaa waxaa macquula wax xun inaad ka hesho maanta kadib indiya dhibaato ma soo gaari doonto indiya aan olaato waan ku baryayaa iska kay cafi arrintan lagama yaabo mar kale inay kugu dhacdo wiilkayga marxaladdaa doonta ku jira balse mar walba waxaa loo baahan yahay runtii inaad garab siiso okaadiya booliska ayaan hadda u wacaya yaad wici rabtay saara mid ayaa maankaada ka maqan wiilkaada hadda isbuucii 2 mar ayaad la kulantaa laakiin labadaas mar hal mid oo keliya ayaad ku weyn kartaa waa midee mataqaan waa markaad booliska telefoon si qaldan ugu dirto orod zabiir maxaa waa xanaaqan kaa muuqdan xabadda ila socotaa nerfisiga dhigtay marka adiga waxaan kaa rabaa markay timaado inaad u sheekayso si ay iga mashquusho jijimaha iyo katiinka nikaaxa maxaad ula jeedaa 50% waa rajadayda 50% waa jiliinkayga jiliin la iga dheh maadaama si lamaannimo ay ku dhahanta aan ku bixino jiliinkayga inaan hagaajiyo waa muhiim mararka qaarna jaanis weynaan ku hayaan ku dhawa kugu shumin kara xitaa cidna waxay dhihi karaynin sidee kugu tahay hordhac leeyahayd middaas ka guda middaas sariirta bidix iyo midigtee ka seexanaysaa aniga soo maaha dhexda nalka madaminaynaa ma soo daaranaynaa taliya roy kama fiirsan miya markuu adiga ku soo dirayo iskaana kuma uusan soo saarin isnaamkayga haddii aad la soco lahayd sidaan maadna dhahdeen ee wax walbaad ogaan lahayd saddex tababar ayaan soo maray tababarkii ugu dambeeyana a t s ay ahayd kadib ayaana shaqadan laysiiyey aniga taliya roona wuxuu ii ogolaaday inaan timkan ka mid noqdo taliyaan aniga ayaa u gudbiyey xogta baasaboorada feega waxaana dhahay shaqadan soo kama mid ahay maadaama xogtaan aan soo gudbiyey maxaa ka fikiraysaana keep going waxaa ku soo jirta miyaa waryaa shaqada oo keliya aan ka fikirno ina socodsii si aan London ooga soo qabanno dooliga raba dhallinyaradeena in uu mara habaabiyo hubka yeman noogu imaanaya waxaan rajaynaa si degan inay nagu soo gaaraan 3 dhallinyarteen ka mid ah ayaa bombay lagu qabtay
120 milyan waxaa noogu deeqday ice waxayna rabaan howlaha annaga aan wadno inaan ku fududaysanno 20 milyan ka mid aan howlgalkeena ayaan ku fulin ilaa haddan wax carqalad ah maanan arkin annaga sax soo ma wixii qalad dhaco dhan mas-uuliyaddeeda adiga iska leh mudane taymuur qaan bariis baryaaniga intaadan cunin ka hor waxaa wanaagsan liinta inaad ku miirto haddii kale gaas ayaa kugu kacay 3 sano 20 milyan ayaa ku isticmaashay annagana ilaahay hadda kashmiir caqabadii naga haysta way taagan yihiin maxaa ku qabatay lacagtaas rag waa naga baabi'isay lacagna waa naga baabi'isay ilaa iyo hadda waxaad qabatay uma jeedno waxaa tiri indiya dhexdeeda qaraxyo fara badan ayaan ka fulinaya hal xabbi xitaa kama aadan fulin ma la dhihi karaa nin fashilma ayaa tahay idinka meeshaan waxaad u fadhiisaan danihiin oo keliya iyo lacag inaad heshaan laakiin aniga amarka ilaah oo keliya ayaan fuliyaa kii isku daya diinta inuu ka hor imaadan sidaanoo kale ayaa u dambayso kow ayaan ka siinaya ma dhaafi doono mii fahantiya waryaada waxaa ballan igu ah hindiya dadka ku nool misne muslimiinta aan ahayn sidee wada dhan yihiinba dhulka inaan ku dari doono oo mid aanan ka reebin waadna arki doontaan waxaan u taaganaa amarka allihiina abuurta oo keliya inaan fulay ninkii dhahayn waa khaldantaa bisoolad waa taase haytoogta balaan arkay fikir kale looma baahno howlgalkan in aan ku guulaysan aan ku wada ducaysano sidaan u dhannahay labadiina meel ammaanad ku nasataan ayaan idin geynayaa soomaaliga si wacan ayaad uga hadlaysaa waalidiintaada midkood baan soomaaliya midna maaha waaw waalidiintada haddeenahan xagee ka barata luqaddeenna awowayaasheeda ayaa ka soo jeedo anigana luuqaddan iskuul ayaan ka bartay af soomaaligii urduugana si wacan ayaan uga hadli karaa sida kuwa u dhashay oo kale ka gudub middaas weligay indiya maanan tegin laakiin maalin uwaan tegi doonaa waxay u malaysaa isla maanta guurkeen in uu dhici rabo hayaa asxaabey waa halkan goobteenna shaqada halkan ayaadna ku noolaan doontaan halkan ayaana ka howlgeli doonaa maxaad dalbanaysaa shaax ama kafee maxaad wax iskaga siinaysaa kuwaan madax wareer oo keliya ayay ku keenayaan dhirirkiisa waa 6 fiid xabadkiisana waa 48 hindiya markaa waxayna soo direen sirdoon khatar ah sidaad naga filaysa askarteena ha liidin waxaad ogaataa annaga haddaynu askar nahay sida atooriya oo kale ayaan adiga waxaa taa qof qiiroon waa lagu qasban yahay inaan sidaas ahaado soo noqdaya qaybo ku fogaateene hagaag wiilkan aan idin baro magaciis waa armaan akhtaar wuuna idinla shaqayn doonaa weliba anigoo raalli keen السلام عليكم وعليكم السلام maalinta aniga wiilasheen la xiray dadkii indii ka imaaday london u soo safray magacyadooda ayaan ku hayaa saytuun ayaa kuu sheegaya labada asgari sirdoonka ahayna way ku jiraan
indhihiisa waan aragnaa codkiisana waan maqalnaa laakiin waxaa isweydiin mudan hadalkiisa markaan dhegaysan ma bakistaan ama waa indiya 9 milyan indiyaanka oo halkan jooga sidee uga soo dhex saarnaa taasaa waa wareer sababta anagana loo keenay kofee shax ayuu cabaa kaas aha 7,873 dadkaas daadooda mise ay u dhexaysaa 25 ilaa 40 weliba qaab askari leh ayaa laga shakisan yahay waxayna isugu jiraan indiya iyo bakistaan waxaana ka ogaana luqadaha ay ku kala hadlayaan dadkan waa dad dembiyo fara badan hore u soo galay qaladaadka geysteen waxaan ka ogaan karnaa social media shakigaana taas abuurtay isisna markuu qofka dembi soo galo way soo dhaweystaan dadkan laga shakisan yahay muuqaalka ninkan markaan isku fiirino way kala duwan yihiin isma lahan taas waxay ka dhigan tahay intaana baaritaan kala samayn kor ayuu sirdoonku u cag wareeji 1437 dumarka haddii aan ka saarno meeqa harayso ragga waa 2,430 isku darra iyo dumarba wiilasheenna markii la xir kadib imisaa tigidha soo goosta oo meeshaan u soo duushay 675 ayaa soo hartay intaas ayaana baaritaan ku samaynaynaa 123 intaysan gacanta nagu dhigin waxaan ku qasbannahay meesha ay joogaan inaan ogaan kadibna aan ugu dhammayno from today 675 qofood waa inaan meesha ku haynaa meesha ay seexanayaan waxa samaynayaan waxay cunayaan iyo telefoonada intaba jiif ma jira baaritaan degdeg waa inaan samaynaa annaga idinka madaxaad iga cunaysaan indiyaad ka imaanaysaan london ayaad imaanaysaan waxaa lidin dalkeena lasoo weerar rabaa sidaas ha u hadleen dadkan garab ayay nooga baahan yihiin waana inaan siinaa ها labadiina wada shaqeey labadana wada shaqeynayna caadi iska dhiga maxaad ku xanaaqdaan xaaladda markaas taagan ay ku xiranta abaayadiis adigoon iga xumaanay ragga noocee ka heshaa muuqaalkiisay ku xiranta hubkan hindii u dirnay ma raba in la ogaaday waxaa rabaa si nabad ah hubkaas inuu ku gaaro zaytuun ninkaas ciidamada hindiya waa inuu iska ilaaliyaa taxadirkiisana uu bataa waa inoo muhiim dhulkaada faraaga ku taaban waxaan rabaa faraa inaan baaro waa la ii sheegay sirdoonkeena indiya hawshan mar hore ayay qabteen sirdoonkeena indiya miyaa hawshan qabanaya oo sirdoonka ingiriiska ka fiican waxaad rabtad ii sheegaysaa adigoo magaalada dhex maraysa qof aad shumis kaa codsata maxaa sameylay muuqaalkeeda ayuu ku xiran yahay sheekada ma alfana dhiig ayaan geli rabaa ogow oo musliya ii sheeg runta hadal maxaad la aamusantahay ii sheeg asxaabta waan daala waa sii baxaya waxaan rabaa hal sawir inaan wada galno xusuus ah ileen burcada halkaan u imaadeen warbixintooda waad weysiin waxaan u malaynaa waddankiina dib ugu laabanaysiin abiiryariiso mala socotaa saalaxudiin inuu ahaa ahliyey geesi ah aanan weligiisa laga guulaysan duulaan fara badanna qaaday karaan tali caddayn baan helnay raggii baasaboorada feegga sameeyey baaritaan baan ku samaynay waxayna noo sheegeen ragga ay la shaqaynayaan london inay joogaan warkaaga sax ayuu ahaa wiilkayga sawirka wadajirka naga codsata ma garanaa magaciisuna waa saahil ninkan aqoon ayaanu leeyahay aniga meedkiisana waxaa laga helay barxadda scotland baaritaan markii aan ku samayna hal tin oo keliya ayaan ka helnay tintaasna caddayn waa ay noo noqon weysay tintaas laftirkeeda waa inaad ku laabataan waxaa macquul ah kuwan ka shakin inuu ka mid yahay shanta qofood ayaan sawirradooda soo helay waan laga shakisanyahay maasha allah way wanaagsantahay haddii aad ii keentay waan ku salaamay maxaan kaa caawiyaa maya waad mahadsan tahay
walaalow dukaanka ayaan xiriir rabaa haddii aad wax u baahan tahay ii sheeg waxyada ayaan rabay ma qaataa sorry ma isiin kartaa luuqadda hindiga xoogaa yar waan isku fiicannahay saaxiibada miyaad u wadaa mise xaaskaaga maya qofna maxaa kugu dhacay abiir maxaa kugu dhacay isdeji dhalloo keliya ayaa jabtay وريا موتada idhig intee wada tahay وريا niyo karno si fiican ii dhegeyso haddii shil dambe u dhaco ogow wada shaqaynta waa ay go'aysaa la soco tali shil ayuu ku dhintay ninka aniga lama saari karo laguma saaray eediisa kowdha taxadirka badi oo keliya midda kale waxaa soo socota diwaaliigii in la taxadarna waa loo baahan yahay maalmo koobanaa ka dhiman tali ilaa haddana gacanta kumaanan dhigin saciid hubkeena hindiya ma gaarin zaytuun warbixinta weliya ma soo siin aaway asiga samar markuu ku arka muxuu cararay tartanka olombikada miyuu isku diyaarinayeen tababar u qaadanaya miya waynu wada ognahay inuu london joogo balse goobta uu kaga sugan yahay miyaan ognahay marka maxaad la aamusanta ma akhbaar bixis waa lagu sugayaa maxaan warbixin bixiyaa ninka saytuun haddii egiis markaan baarin ee tirada aan haysan ma islaha taas waxaa kaaga daran taleefankiisa markaan baare cid soo wacda male cid uu wacane ma jirto ilaa haddana waa la yaabana beentaada maantaas qofka markuu tuugaya dhaqankiisa ayaaba sidaas iska ah taleefanka waxaa ugu jiro brograam qofkii soo wacaba tirtiraaya laakiin qof soo wacdaa bay raatay ma jirto waad fiirin kartaan nambarkiisa raadraac ku samey dhaqso locationka waa south africa ya uu isbedela america macquul maaha ها واسحنت لك هل من لقمة مامي كرو سو مجدد نو حبك ما قبكر ما يا سمين اكو فودان كجوك وان كبريا دغنان موجي سمر سمينين كاميرا horteedood ku hadli karta Soomaal balse si toos oo ka cabsanaysa waan ogahay
inaadan hadli karin saytuun kaadiri adiga ayuu kula shaqeeyaa soo maaha gurigiisa ayaan baaritaan kusoo samaynayaa kadib ayaan wada hadlaynaa weliba face to face guriga uu sheegay intuusan tegin waxaa idinka rabaa inaad ku hormartaan kadibna wax yaalaad baabi'isaan waxaan kaloo idinka rabaa inaad naga hurisaan hubkeenna si nabad haddii uu ku tagay haddii guriga saytuun waan joognaa waana laynkan guriga ugu dambeeyo dabaqiisa labaad daawadayaal muuqaalkan saacado ka hor ayuu warbaahinta soo gaaray dadkuna waxa ay lahaayeen ninkan waa nin burcad ah laakiin arrintaas waxaa beenisay bafaani barteeda twitterkan waxa ay ku sheegtay ciddii u malaynaysa ninkan inuu burcad yahay burcad maaha laba kelimad ayaana rabaa qofkaas inaan ku dhaho hindiya ha noolaato ninkii burcadka lagu tilmaamayana waa ay garab istaagtay muuqaalkan aad warbaahinta siisay iyo aqoonsigaaga aad gudbisay dhibaatada kaaga imaan karto ma qiyaasi kartaana maxaa iga imaanaya ii sheeg mar kasta waa dhimanaysiin nugu haysiin waddo kale ima banaana war nafteeda hal mar ay goysaa ay dhaaf kun jeer ma goyse
malagaygaan sugaa bal aan aragna waxa suubi doonto waa sax waana la ogaanaa waana nala soo raadinaa wajaraa'idadii meelahaasna waa naga soo tixraaca hindidiina warba maqlaysin madax adeeg ayaad ku baadeen maxaa sidaan ka wadin noo sheegay hool haddii la qabanaa deganaan ayaa lagu qabtaa orda dalkiina dib ugu laabta geesiyaala iska dhigaysin weli ma la socotaa dadkaasi weerarkooda 21 beri ayaa ka dhiman adigana meeshan ayaad 3 saacadood nooga khasaarinaysaa ma ka fikirtay taas si fiican ii dhegeyso aad bay u adag tahay aabba inuu inkiro wiilkiisu xaalad xun ku sugan aad bay u adag tahay hooyo inay fiiriso wiilkeedu dhibaatoonayo weligaaga hooyo cunugeedu oynaysa ma aragtay taa keliya ma ahan waddankoo idilna halis ayaa ku soo socota sidaada bannaan waa qaldantaa waxaana ku wanaagsan inaad caga dhigato daawooyinkaaga qaada ee soco isbitaalka aad ilaa iyo hadda ninkana gacanta kuma dhigin laakiin ugu dambeyn gacanta ayaan kusoo dhigina oo naga baxsanayo booliiska baaritaano fara badan ayay samaynayeen shacabkana sidoo kale su'aalo fara badan ayay isweydiinayeen lamana ogaanin shakhsiga meesha ka soo baxa waxa uu yahay laakiin nasiib wanaag isaga ayaa muuqaal soo duubay shacabkana la wadaagay magacaygu waa karan durga waxaan nahay indiya waxaana ka tirsanahay ciidamada sirdoonka indiya magaaladana waxaan u imid inaan ka hortago qaraxa dadka geysanaya iyo qorshaha ay wataan oo idil sidaas xitaan waxaa la ii soo sheegay burcad fara badan inay magaalada london ay joogaan mar dhowna waxaan ubaa burcadaas gacanta inaan ku dhigo qorshe ayaad ii dhigteen waana ka badbaaday saaxiibka runaantii waad kaftamaysa aniga ma kaftamayo adigaa u malay hadda waxaad soo wadaa soo maha magaciisa iyo adreyskiisa haa magaciisa iyo adreyskiisa beelad saaxiibka marba aqoon buuxda haddii aad ileeda maad hor imaadi tv maxaad ugu egtahay waan ogahay hadda meesha aad joogtid saacado kadibna waan kula joogaa maqaayadaad wax ka karisidna ayaan imaanaya waqti xaadirkan ma rabo qof kale inuu ila sii joogo awdhaso war labadiina waxaad damacsantihiin maa noo sheegtaan haa marka hore bafaaniyaa twitterka muuqaal ku baahisay haddana adigaa noogu darsamay qorshe aan anaga ogeyn hadduu jira maa noo sheegtaan marka hore anigaa badhahay dhig qiiqa waan aragnaaye holaca waa inaan aragnaa meeshuu ka imaanayo ninka saytuun lahayn maqaayadaha ayuu hilibkeeda jira sax koonfurta london 64 maqaayadood ayaa ku taal soo maaha sax sax imise maqaayadood ayay bakistaan iyo indiya ku kala leeyihiin ilaa 7 maqaayad intaba annagaa baaritaan ku hayno waana dadaalaynaa maqaayadahan mid ka mid ah ayaan qada ka doonanaya si aan isha uga soo hayo aan soo ogaado wax ka jira meeshaas DNA-yada noo yaala iyo kan saahil waa inaan baaritaan ku sameeya wax ma soo baxaa keena armaan meeshaan ku qabo gabadhan iyay tahay waxaa la yidhaha tahir ansaari waxaa qaban jira ninka lagu magacaabo barak ansaari maqaayadda boqoraa la yidhaha ninka iskala waaya da'diisana waa 34 jir wuxuuna ku soo barbaaray xaafadda jalsi naagtiisana waa furay wiil 10 jir ayaa u joogo magaciisana waxaa la yidhaha abin ansaari asigaana soo korsaday wuxuuna dhigtaa iskuulka Southam State hooyadiisana bisha hal mar ayuu la kulmaa middaas ayaa marugu ku abuurtay cunuga maxay tahay sababta uu hooyada ugala wareega cunuga
waqtigeeda ayaa la taagan yahay hore aan idinkugu sheegay oo waxaa idin dhahay waqtigaad howlgalaysaan aniga waa inaad iga sugtaan waxaa loo baahan yahay waajibaadkii rabbi idin saaray inaad gudataan waxaa la jooga shacabka hindiya waqtigan argagax fara badan ku abuurnahay annagana aan guulaysan lahayn shacabka hindiya ku nool waxaanu u sheegayaa maalinta diiwaaliga ay u dabaaldegayaan hadiyad qurux badan inaan u soo dhiibi doono waxaa kaloo igu ballan dhaabac xusuus fara badan ku reeba in aan gaarsiiyo shacabka hindiya ku nool maqaayadda bukhaari dhaqdhaqaaq ayaa ka socda waa inaad la waad socotaa saxantahay dna aan baaraya ininka maqaayadda joogo waa isleeyihiin hadda maxaan sugaynaa maan dhaqaaqno براق أنساري أيان ربا gudaha ka fiiri gudaha وما تنتهي buraha guriga ma joogo مقايدنا مجهول arrintaas ayaa dhibaato ku abuurtay maxaa kugu dhacay iskuulka wax ka bartan oo hamisteed وما أقانا ماشي وجهك gurigayga awood aad ku soo gasho ma weysay waxaan u malaynayaa awood waddankayga aad ku tagtay inaad weyday tagiddaad ku dhawaaqda waxba iguma qaadanayso waxaan doonan waan ka samaysan karaa dhalanteed ayaad meesha ku haysaa kuwa adiga kaa horreeya ayaa wax ka qaadi waaya kabsan ilaa iyo hadda guul aadan gaarin ayaad u dabaaldegaysaa hindii soo maha waxaan doono goor hore ayaan ka samaystay adigana waxaad gacanta ku dhigtay buraag asaariye micnihayga cunto kariye 911 wax ka daran maad hindi ku samayn rabto tan kugu dhigidhagay faray ayay noqon doontaa waadna arkaysaa balantaada way buraysaa hindiyan waan baabi'i doonaa waxaana balana qariiradda hindiya dhexdeeda inaan ku qoro magaca allah
dunidoo dhanne magaca hindiya aan ka tirtiro taasina indhahaada shadaad ark haye oday ciyaalkan waa la jah wareeriyey adigaa wadaada qoran aqriyay bal la hadal ilmaha asalaamu calaykum wacalaykum assalaam ilmahey waxaa ii sheegtiin markiin idin imaaday waa isalaanteen maxay ku dhacday sabab shiiqow diintaana faraysa taas inaan samaygaali muslimna way sunan tahay assalaamu calaykum waa idhahaysii marka macnaadan asyaay nabadgelyo korkiina ahaato marka aniga waaba isalaanteen waana ii ducaysan sa hadda ii sheegtan marka say ku dhacday anoo isalaanteen haddana inaa ii xanaaqdiin say ku dhacday ii sheegba waryahan saari waa maxay waalidan nin weyn oo mas-uul ayaad ahayd hawl baa laguu dhiibtay hawshina waad dayacday dad fara badanna agtaada waa ay ku dhinteen teeda kale ma ogtahay ninkii dambe baaraha indiyaanka inuu adiga ku ogaaday arrimahagoo dhanna saahil ayuu ka ogaaday maxaad samaynaysaa marka waa yahay aniga maahanay waa wiilkayga wiilkaaga yaraa iska ilow ka soo qaad isagoo kaa dhinta allah yarxamu raaximiin muumin hadalkayga si fiican u dhegayso wiilkayga ha dhinto amaba ha noolaado amaba dunida meeshuu doono ha kaga noolaado oo aniga haya inkiro aniga muhiimaddeedu waxay tahay mishinkayga in uu guulaysto uusan marnaba iga dhicisoonin 3 maalin ayaa ka dhiman gaalada ciiddooda waxayna dhihi doonaan 6 maqrib shayddaanka ayaan gubaynaa guryiina ka soo baxa iyaga waa inaan gubnaa sababtoo ah shayddaamada waa isla iyaga malaayiinkaas kufaartoos ku soo baxayaan hilibkooda sida dambasiyoo kale waa inaan ka dhignaa waa kulankeena ugu dambeeyey waa jihaadkeena ugu dambeeyey waa inaan baabiina balansaad qaadeen waa inaad oofisaan hana isku dayna amarka ilaahay inaad ka leexataan taasi ma ballan baa inaad gumaysiga iyo dulinnimada aad ka baxaysaan diintiinan aad difaacanaysaan balan miya oo ma isku raacni jihaadka soo diyaar ma tihiin waa ballan diyaar ma tihiin waa ballan diyaar ma tihiin waa ballan waa ballan ballan waaye ballan waaye ballan waaye ballan waaye ballan waaye ballan waaye weerarkaas markuu dhac kadib hindiya waxay isku dayaysaa shacabka ku nool ee muslimiinta in ay baabi'iyaan shacabkaas baaba'ay waxaa ka hari doona ciyaalkaasna waxay noqon doonaan kuwa aniga garabkayga soo buuxiya qaarna xukuumadda hindiya ay ka mid noqonaysaa oo xukuumaddaas ayay dhulka ku dari doonaan mishinkeennan sidaas ayuu noogu hergeli doonaa mudane muuqaalkaas bal ilo daawa arag marwe sahiira hal mar ii ogolow cunugaaga inaa su'aal weydiiyo adigoo mahadsan abiir wiilkayga aabbaa wax dilaa ma aragtana ii sheeg aabbiirow aabbahay wax daldalaya miyaad aragtay dee noo sheeg abiir aabbahaagu qof dilaaya miyaad aragta noo sheeg adiga weydii maxaa dhacay marwe sahiira ninkaaga hore inuu burcad yahay adiga ma aaminsan tahay dadweynaha arrintan way ka shakisan yihiin balse aniga waan yaqiinsanahay damacaadii dareenkaada ayaad ka hadashay balse waxaa ballan ah dariiqa saxda inaan ku marsiiyo adiga waxaa la leeyahay howlgal ayuu indiya ka fulay rabaa arrintaasi ma runba mana ku guulaysan doonaa howlgalkaas wuu ku guuldaraysan doonaa
sirdoonka waddanka ingiriiska waan u mahad celinaya maadaama zaheer iyo abiir ay u ogolaadeen inay intii aadaan abiirna wuxuu noqon doonaa ciidamada hindiya adiga ciyaalka yar iska ugaarso waxaad doontana ka samaysa balse ugu dambayn wiilkaaga ayaa ku ugaarsan doona waadna arkaysaa dagaalka shacabka hindiya ayaan ku waday laakiin anigaad isoo weerartay sooma shir saxaafadeedka aad qabadsay wiilkayga geesinimadiisa ayuu ku soo bandhigay waa maalin maalmaha ka midan booska abiis ayuu buuxin doonaa taasina waa hubaal taleefanka iigu dhiib aniga fikirkayga haddii la weydiiyo mar waa abiir codkaaga xataa inuu maqlo balse waxaan u baahanahay waxa uu ku dhihi rabo dhagahaaga inaad ku maqasho oo dhegaysato aabbaha la hadal wiilkayga abiir hadalkayga si fiican u dhegayso waajibaadka i saaran ayaan hadda gudanayaa waajibaadkaas intii aan ku guda jirana haddii aan dhinto shalaay ma qabo wiilkayga hadalkaygana qalad ha u fahmin waad fahamtay sooma aabe aniga ma rabo sidaada oo kale inaan naqdo abaabeey laakiin waxaan rabaa hooyaday oo kale inaan naqdo aabaha ayaan kaa fogeynayo zahira hadda waxba ma dhicin laakiin lacalla haddii ay wax dhacaan waxaan kaa rabaa inaadan gaariga ka soo degan akhyaare waana la leexsaday waan arkaa albaabka looga ku dhuf bannaanka u soo bixiyaa meeshiina ku jira habaqin ammaanaa ku jirta maraadi waa bruuf
ciil badana halo buraagan saari ciidamadiisa ayaa watay maxaa tiri ninka buraagaha barxad Scotland ayaa lagu qabtay xarunta dambi baarista ayaa haddana loo wadaa afduubka meeshan ka dhac dambigiisa ayuu rabaa dusha inuu naga saaro qorshe kale u damacsan yahay meeshaan inaad booqataan lama ogolo laakiin garan waxaan ku siinayaa hal jaanis oo keliya buuq iyo dagaal inaad kicisidna lama rabo waa inaad isdejisaa labaatan minid ayaad haysataa su'aal walbana jawaabteeda waa inaan ka helaa haddii ay dhacdana nabad ayaad meeshan lagu baxaysaa way bilaabatay meeqa ciyaal ayaad tababaraysaa ii sheeg intee hubka ka qaaday inteese u gudbisay halkee goormee ayay weeraradaadu dhacayaan zahiira iyo abiirna halkeed geysay niyow caadi ma tiid laakiin hal qalad ayaad lugaha kula jirtaa xaaskayga canugayga aad ka fikiraysaa meeshii loo baahnaa waddanka inaad ka fikiraysaa jawaab saxan waa inaad siisaa sidaan waa qalad yaa qabalo dul qaadan karo mudana waan ku baryaa 10 daqiiqo dar su'aal walba waad u baahan tahay xaaskayga aad ka helaysaa jawaabooda waryaa qorshahaaga muxuu yahay qorshayga iyadoo keliya kaaga jawaabi karto ee aniga maaha orod raadi maxaad sugaysaa aamus waryaa waxay igu ballanaan lafahaaga inta burburiya raajo marka lagu saaran la kala garan waaya laftaada meesha ay ka jaban tahay iyo meesha ay ka fiyowdahay marka ii sheeg qorshahaaga xiga muxuu yahay 3 saacadood gudahooda indhahaada waxaad ku arki doontaa anigoo baashaala misna qoslay albaabkaas in aan ka bax adigana waxba aadan ka bedelin taliyaad ka qabtay aqninka siida war siida waxaaga baaritaan maa ninka ku xadgudubtay siida ayaan ku tartiibaad warii weydii 3 saac muxuu ula jeedaa war ma ogi socod ay wariya xakarta adiga sirtiri house nabadii soc kumaanda ma waarata ninka burcadka ayaa doonaysa inaad sii dayso ها waan ku qasbanahay inaan sii dayno ninkan weerar burcadnimo ayuu halkaas ka geysan raba midaasi ma ogtahay taliya sidaad ku suurtagelisay adiga howlgalkan waa laga wareejiyey militariga ayaa ku wareegaya ayaan ku dhahay sabab aawa ciidamadiina sirdoon amarkan waa amar aniga iga sarreey waxaad fahmi kartana maaha ninkan xorriyaddiisa inaan siinana waan ku qasbanahay ya waryaa karan jooji karan waxa samaynaysa waa maxay ma waxaasan kugu soo tababaray dhammaantood waxay isku dayeen ninkaas inay caawiyaan sababta ay sidaas samaynaya mii sheegi karta tali karan doqonnimo isku qaadin bastoolada hoose dhig hey adiga ma nagu soo kala firay sooma ha ilaawin biritan waa waddankayga haddii iska dayo taliyahayga inuu xabad ku dhufto waa ballan waan ku dhufanaya dhaqso karan buta kan down waa amar daji roy haddii aadan saaxiibkay ahaa lahayn ninkan mar hore ayaan xabsiga geli lahay oo ku hubsan lahay fursad 24 saac ayaad haysataan sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad ingiriiska uga baxdaan haddii kale waxaad ogaataan hubka dhigis inaad idinku samayn doono kadibna idinkoo shacab ayaad joogi doontaa waddankan hal qalad haddii aad samaysaan waxaa ballan ugu ah inaan madaxa idinka toogto burcad fara badan waan soo aragnay kuwa ninkan ka khatarsanna waan la soo kulannay maantana ma londonay maraysaa daraska ciidanka markaan xidhanayna ayaan ku dhaaran inaan xabad ka baqin balse isaga waxa u malayaa hanjabaaddiis inaan ka cabsanin karan ilwaan anaa kuu ballan qaadaya 24 saac guud waddanka inooga baxaan isdeji oo keliya adiga karan
waa ku baryaa inay fahanto isku day maxaan fahmaa taliya waddankaygu sidan loo dhibaatayna maan fiirsan karaa waxaan fahmayaa baraatee ma jiraan iga raalli noqo taliya taliyo sheekadan waa iska caadi ingiriiska waddankooda ay difaacana annagana waddankeena aan difaacanaynaa marka hore maaskar ayaad ku qarinaysay haddana raggan gadaashooda waxaa igu ballannaa maalin uun qabrigaaga inaan ku tusayo 24 saac ayaan haystaa 24 ka saac aan aragna si aad isku badbaadin lahayd waad bootaysay naga beer ansaari buraak sababtoo ciidamada isugu dhiibay maxay tahay taas maa wax weyne way is afkarteen oo jeebka u qoyay maxaa dhacay niyow meeshaad ii waddaa intaada igeenin ka hor waxaa rabaa masaajidkan nasaar inaad meersiiso si aan waajibaadkayga u guto waar waad qaldantahay masaajidna ku geemayna naga aamu madaxda adiga kaa saraysaa wax walba uu hoggaansan marka ma loo baahno madax adeeg inaad samayso hadalkayga waa inaad maqashaa waan soo hubin okay waa labadiina meesha sii taagnaada ilan gudaha linma ogoleen anigu sheekadana may sheeko ku hoos duugan tahay waan ka sheekiyaan walaal labadooda dabaq kor ayay saaran yihiin abiirkayga caddaa wiilkayga ha cabsan inaad cabsatana ma loo baahno arrinkaas adiga qalad kuma lahayn ee hooyada ayaa ku qaladay
kaali maalmahan waxaad bilowday sama dadka ajaanibta in aad la sheekaysato abiir mii maqashaa cashirkan ku soo baray muxuu ah qofka hadduu qalad gala hee ciqaabtiisa waa inuu maraa ciqaabtaadana waad maraysaa buraaq ansaari qalad walboo gashay ciqaabtiisa waad mari doontaa kama badbaadaysid walaal salaaddu ay dhammaatay raggani adiga bannaankoo taagan yihiin abiir meeshaan waa inaad ka badishaa miidkaanni asur adigaan kugu ogahay labadeennaba wadamadeena kama soo horjeesan karno laakiin markaasi bani'aadnimo ay ku dheehantaa garab noo sii karanoy dhegayso annagu weli maanan diyaar garoobin howlgalkaanna waa u socdaa tilaabo qaldan adigu ha isku qaadin aniga lafteeda arrintu way haysataa dadaal badan iyo juhdi ayaa lana ka doonayaa waxaan u baahanahay cunug yaraa ee abiir goobta uu ku sugan yahay in la soo ogaado haddii la soo ogaadana anaa idinla soo wadaagay inta ka horraysa dhaqdhaqaaqa samaynin maxaa halkan ku keenay mise guuldaradeedu dabaaldegaysaa
ninka buraag ahaa taliyaha naga sarreeya ayuu lacag siiyey goobaha annaga aan ku sugannaha oo dhanna waa uu la socdaa waxaa loo baahan yahay annaga inaan taxadir fara badan muujino taliyaha ayaan raba inuu waddanka ka saaro saaxiib aniga waxaan kugu soo laabta howlgalka inta ka dhiman inaan kula dhammaystiro ninka buraag ahayn ciidamada militariga ayaa korka ilaalin lahaa karan ragga hawsha la wareegay waa rag militariya amar diiddaha isku samaynin haddii kale nolosha ayuu kugu tooganayaan raggaas isilaali ayaan ku dhahay taliya amar diidda waan samaynayaa markaan waayo waddankayga inaan badbaadiyo ayaan rabaa karan waxaagu xal maahan ee waa ismiidaami naftaada ha baxraynin waa ku baryaa saacado kooban baa noo dhiman isdeji ayaan ku yidhi taliya ninkaas gacanta waan ku soo dhigaya xisaabkan ku bixi lahaa adiga ayaa lagaa xaggee ka keenaa qaabka aad ku bixi lahaa waxaan suurtageli karan anigoo buraag tunka ku sida ayaan soo laabanaya ama meedkayga ayaa calanka lagu soo duubayaa taliya anolaata intii saraakiisheenna qaybta logistikada dhegihiinna ama haya wax yar raggii London aan u dirsannay xaalad xun bay ku jiraan waxaana loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan meesha uga soo saarno wasiirka difaaca waa inaad igu xiriirisaa naaw waaya taliya albion ayaa la yidhaha waa meesha buraag ansaari uu ku dhuumalaysanayo meeshaasna waa meel ammaankeeda aad loo adkeeyey intaan ku raacan waxaa loo baahan yahay inaan karfinteeda sii diyaarsado maxaad iga fiirinay waan ku raaca waraayarow softwareka kombiyuutarka iigu xir dhaqso abiir aalbaadka oo isticmaalaya lokeeshinkiisa ku soo xirtay dhaqso maxaad sugaysaa haya yarka ma sheegtayna wax weyn ha u qaadan asxaab indiyaano halkan ii jooga ii fududeeyeen qorshaha qorigan wuu naafacayaa roy qorshahaaga aad ayuu u wanaagsan yahay laakiin waxaan kuu sheegay annaga tilaabo kale inaanan qaadi karin adiga abaanduulaha dib u soo celi dadkaas waxaan kaa rabaa inay dib u soo laabtaan waa yahay wasiir qolkan waa qolka shaqada jecelkii waxyaabaha waddaan iga joojiyey wax kale ha moodin waxaan ka baqayaa fursad kale inaan isku heli weyno dhimashii waxyaaba noocaas ha ka sheekaynin mishinkan waan ku soo guulaysanaynaa waxaana laga yaabaa magaalo kale ama mishin kale inaan ku kulanno kaala duqa aniga waan ku ogaa atoornimada in aadna dhaafin waxaad doonto samee laakiin naftaadii wax iga gaarin balse roy arrinkaas ma uusan ballan qaadin mogtahay ogsoonow haddii aad dhimato raw kama dhimane dalka ayaad ka dhimatay anigane si gaara xanuunkii taabanaya waryaar roy hooshii aan ku ogaa xaggee maraysa tali markab aan leenahay ayaa waxaa ku jira biyaha ingiriiska maxaan samaynaa waa ku soo qaadi karnaa karne diyaarad waa in la raadiya hadda warnimo ciidamada taqiini maaha waa ciidamo khatara halistoodana wata waxayna isugu jiraan saraakiil hore waa niman daalan oo dowladdooda u soo dagaalama hayse bistooladan maya aniga bistoola ma taabanaya fariiga waxaa loogu talagala kombyuutar oo keliya iyo qalinka inaan ku qaado warkaaga ma xume bistooladan hayso iskuna ilaali okay abbi intaa badbaadinayna haddaa meesha ku dhinta ka wara canugaasoo adiga ma haynays ahaa waan haynayaa haddii labadeenna aan badbaadna ka waran taas karneedan u taas soo moogid
bidix maa ka seexanay mase midig sariirta ii sheeg inaan ogaadaa rabaa tali xog ayaan kuu hayaa ninkii karan ahay albion ayaa warar ku qaaday orod bax buraaqna soo badbaadi karana waxaan kaa rabaa nolosha inaad ku toogatid
karan soo soco ciidamada militariga ayaa soo socda dhawaqood ayaa maqlaya soo dhaqso maxaa sugaysaa kar waqti ugu dhammaaday maxaa kugu dhac soo dhaqsa karan intaadan hadlin ka hor karan helikabtar baan kuu soo diray waxayna ku goyn doontaa marka badweynta taagan marka sidaad ku raaci dhahdaa dig down abiir isdeji wiilkayga waadna raacaysaa hooyadaana way jecleed inaana raacdo waan israacina soo bax eerboorkaasi toos u aadayna inta dhiman anigaa dhammaystiray okay أول نيكي والله هليكوبتر توتي نيكي والله برساني يا سموجي tali anaga dhulku ma degi karno asiga oo dhow xirigan u tureynaa soo qabsado
anigii adigoo isku dhow sidaasay tahay haddana labadiina waa aan kala fognahay adiga unbaa u malay ani adiga inaan kala fognahay mooye xisaabteeda ma horan soo afjaray saaxiibka aniga howsheeda mar hore ayaan qabsaday maxay tahay xisaabta aad adiga ka hadlayso imise annaga naga mid eh ayaad silac u disheen imise annaga naga mid eh ayaad xorriyad u diideen imise annaga naga mid eh ayaad salaada u diideen intaasoo dhan dhibaato aad marsiiseen waxaa balana mid mid inaan idinkaga aro si aad u macaashto siyaasad kale waddankayga ha u isticmaalin indiya waa hal mana laga yaabo inay kala goodo ama ay burburto saacad qurux badan ayaad xiran tahay laakiin wakhtigeeda waa uu qaldan yahay adigoo london jooga ayaad saacaddaada ku seefgaraysatay indiya taasi waxay caddaynaysaa maanta inuu weerar dhici doono dhimo taliya karna qad ku jiro samiicadda fur aan maqle waayaa taliya taliya ninka wuxuu leeyahay maanta weerar ayaa dhici doona maanta weerar ka dhacayo kumanaan meelood ayaa xafladda dasaariya ka dhacaysa xaggeen aadnaa ciidamo intaas leegse annagu ma haynaa waxaan samaynana ma naqaan lokeeshinka noo sheeg waqraxyada kaysa waxba ha iswaalina idinka waxaad rabsaan hindiya inaad badbaadisaan waxaa ballan ah hinduuda hindiya ku nool hal erey afkood inuu ka soo baxo ereygaasoo ah allah 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 waxaa ballan ah qariirada hindiya dhexdeeda magaca ilaahay inaan ku qoro may maqlaysaa karan taliya weerarka wuxuu ka dhici doonaa 5 magaalo intee weeye in magaca alla ku qor qariirada hindiya ALLAH taliya alfabeetada waxaan ula jeedaa ALLAH hayuda amritsar aglabad agra lagambur laksimabur ladudana iyo haydarbaad haysar iyo hershakeesh meeshaan doon ayaan ka aadi karaa yaa karan haddaad doonaysa waxyaabahan inaan istaajinno waa inaad warbixin saxan noo keentaa karan may maqlaysaa hindiya goordhow waa ay burburaysaa weli indhahayga ayaan ku daawanayaa taliya magaalooyinka wuxuu kuu sheegay muslimiinta iyo hindida dad ahaantay ku badan yihiin isha macnaha waxaan ka wadaa magaalooyinkee muslimiinta lagu dhibaa bobsiya jawaabaan alka rabaaye waya tali dhaqsada taliya jawaab loo geey karan si wanaagsan ii dhegeyso waa lutaar axmedebaad murabaad bagaloor nilya mombay ludiana hasimbura magaalooyinkaasoo dhan waa lagu dhibaateeya inteen qabsannaa axmedabaad lutra lindhuura xasanbuur nambarka shanaad waa tee lambarka shanaad asagaarax caligaarax alaabaad ayaa ku jira tee dooranna waa yahay taliya magaca aniga ayaa ku hay waxba ha walwalin magaaladaasna waxay noqonaysaa ayudha magaalooyinka waad heshiin laakiin su'aashu waxay ka taagantahay magaalo gubanayso ma badbaadi kartaan idinka jawaabtu waa maya ciidamadeeda waa siday u howlgaleen amarkana waa ay qaateen goordhowne waxaad arkaysaa hindiya oo dhinac ka gubanayso qorshahayga waan ku guulaystay adiga lagama yaabo inaad iga guulaysato taliya ninkan qayladiisa ayaan wax yar ka qashay shanta magaalo la sheegay waa in ciidamo loo diraa heegan waya taliya taliya shanta magaalo aadan idin leeyahay muuqaal ayaan ka sameeyey muuqaalkaas ayaan doonaya inaan idiin soo diro muuqaalkaas waxaad samaynaysaan shantaas magaalo ayaad ku diraysaan haddii telefoon aad ku diri lahayd ama internet ama radio ama news canal haddii aad ka faafin lahayd intaba waa inaad gaarsiisaan taliya karan fiidowgiisa waana soo gaaray haye magacaygu waa karan durgaa waxaan nahay askari ka tirsan ciidanka indiya masajkan waxaan idinkugu soo diray maadaama aan ogahay mandirada masaajidada iyo xuduudahan ku dagaalanno
xiriirka muslimka iyo hinduuga ka dhexeeyna wuxuu soo jiray 1700 sano ka hor sidaas ay tahay waan isdagaalnaa balse markii iidaha la joogo iyo markii iskuulaadka waxaynu nahay mid hal maynan wax ku barnaa aadaanka salaada subax runtii aad baan u dhibsanaa balse subaxii markuu waaga baryo hoteelada ayaan ka wada quraacanaa muslimka markuu shaqo raadiyo runtii waa uu ku dhibtoodaa laakiin markay helaan macmacaan ayay noo qaybiyaan weerarkii ka dhacay bulwama muslimiin fara badan ayaa lagu laayay sidaasay tahay muslimiinta wax cuqdada ma aysan qaadin meel walba way nala joogeen xafladaha xitaa way nagala soo qaybgalayeen muslimiinteena xaqooda waa inay u dagaalamaan sababtoo xaq waa uu ka maqan yahay balse ma ahan waddamo shisheeye inay aadaan waddankana ay khiyaano ku sameeyaan sida ninka lagu magacaabo oo kale buraag wuxuu rabaa waddanka inuu kala qaybiyo wuxuuna doonayaa muslimiinta indida ah inuu cadaadis saaro kadibna kacdoon ay sameeyaan waddankiina uu kala qaybiyo indi fara badan meesha ay ku baaba'do laakiin aniga ma oggolaanayo waddankayga in laba laga kala dhigo laakiin aniga mar walba waxaan jeclahay muslimiinta iyo hinduuda inay midoobaan ay hal naqdaan aysan oggolaanin cidna inay kala goyso muslimiinta indida ah maanta ayuu hadalkooda caddaanayaa ma waxay raacayaan buraag mise waddankooda ayay u helinayaan jawaabta iyaga kale go'aanka gacantiina ayuu ku jiraa indiya ha noolaato xisaabtan la'aantaada hal fiideo aad duubta ayaad rabtaa 5 magaalo inaad ku badbaadiso ninkan waajibaadkiisas guti unukan waajibaadkeenana laga rabaa inaan gudano annagana ma ku raaci karnaane maya ilmihii iska joog idinka hawsha qableedan weli mala gaarin inakaaneedi soo dhaqsada gabadheeda sakiinaana wadi dhaqsada كان اللي حلو يعني اللي جوي كانوا اللي حلو اللي حلو
shan gobol oo waddanka indiya ka mid ayaa waxaa laga ballan qaaday qaraxyo waaweyn in laga geysan doono shacabka aad ayay u kaceen waxaana gacanta lagu soo dhigay dadkii raba dhibaatada in ay u geystaan shacabka ayaa aad iyo aad u kaca waxayna ka hortagayaan dadka dhibaatada u horseedaya waxayna diideen in la kala qaybiyo hal far ayay wada noqdeen horan kugu sheegay taan kugu dhigi doon dhegay faray inay naqanayso inay dib kugu celinayn maantana ballankayga waan oofinaya wadna arkaysaa inta aadan dhiman waa inaad mid ogaataa shacabka indiya marna ma kala qaybin kartid muslin ahaada ama induuha aadan mar walba way isku duuban yihiin ciiddoodan lagama carqaladaynayo adeer sidee tahay sooma fiicnid kabiir iga waran aniga waan faraxsanahay abiirna waa uu faraxsan yahay waxa uuna ku beeray ciidamada qalabka sida dalka indiya ninka aabihiisa wiilal badan ayuu naga baadiyey laakiin nasiib wanaag kuwa asaga dhalay ayaad gacanta ku soo dhigto ciidamada ku soo dartay nin wanaagsan oo sharaf mudan ayaa tahay run ahaantii waxaan ahay askari aabihiisa ballan ka soo qaaday ballankayga waa inaan oofiyaa calanka salaanta loo saaro filimkan waxaa lagu tarjumay studio Farm Roach Mogadisho